madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta socdaal ku yimid waxa uu ka soo qayb galay xafladda qalinjabinta jaamacadda Timcad ee gobolka Gabiley markii aan eegay dastuurka Soomaaliland ee maartay qeexayay in waxbarashada tacliinta sare kor loo qaado markii aan arkay maamulka iyo Dean of Academics-ka iyo registrarku warbixinta ay soo gudbiyeen waxaan maanta hortaada ka qirayaa ardayda hortaada taagan in ay buuxiyeen shuruudihii digriyada iyo dibloomooyinka ee ay maaragtay loogu talagalay kulliyadaha ka qalinjabiyeen ayna mutaysteen maanta laga bilaabo in ardaydaasi la siiyo shahaadooyinkoogii haddii digrii tahay iyo haddii dibloomooyinkii haddii yihiinba marka waxa weeye ardaydana waxaan leeyahay hambaliyo waa dafcadii sideedaad qaadinayaa marka koowaad ardayda ka qalinjabinaysa sanadka 2020ka waxaan leeyahay walaalayaal ama aabbayaal ama adeerayaal allah idin calfo wixii aad barateen allah idinku anfaco ummadana allah ku anfaco mar labaad waxaan leeyahay hambaliyo waxaynu joognaa xaflad qiimo weyn oo farxadeeda iyo qaayaheeda iyo wanaageeda leh haddii aanu nahay maamulka cusub ee degmada Wajaale waxaan buugii ku aragnay jaamacadda imika 2020ga horumarkaygii ugu horeeyay ee aan degmada ka fulinay oo istariileedyadii aan wax ka qabanay ayaan imika buuga ka aragnay waa wax weyn oo ay jaamacaddana gobolka ugu jirto annaguna ka maamul ahaan jaamacadda aad iyo aad baan u soo dhaweynaa aad iyo aad baa runtii sharaf ay noogu tahay in jaamacaddeennii Timcad dafcadii sideedaad ka qalinjabinayso dowladda hoose degmada Gabiley lafdhabarba u tahay jaamacadda qaran ahaan waxbarashada dawliga ah waajibka ay naga saaran inaynu maalinba maanta ka dambayso sii horumarino annagu waxaanu ka mid nahay dowladda hoose degmada Gabiley dowladaha hoose sida gaarka ah sida dhow la shaqeeya wasaaradda waxbarashada runtii mandate-ka dowladaha hoose ama golayaasha deegaanka ee koobaad ee waxbarashadu waa waxbarashada hoose dhexe tacab weyn baanu runtii gelinaa si aynu kor ugu qaadno tayada waxbarasho salaan kadib hadda waxa weeyaan in dardaaran iyo waano la siiyo ardayda qalinjabinaysa ee jaamacadda ka qalinjabisay maanta ardayda hal baan leeyahay dadaalka iyo sharafta qiimaha leh halkan ku joogtaan waxaan filayaa waalidkiin ayaa kowka haddaydaan haysan waalid idin soo barbaariya oo halkaa idin soo gaadhsiiya halkaa ba idin soo gaadhay marka hore ilaahay u mahadnaqa warlabaadkana waalidkiin u mahadnaqa midna waxaan leeyahay wasiirada halkan fadhiya wasiirada waxaan leeyahay de marka aad timaadaan intaasoo wasiir baa isku soo raacdeen gobol baad timaadeen dhallinyaraa qalin jabinaysa waxaan odhan lahaa nin waliba intii usoo beegata ama inta sii wadanaysa ha noqoto ama kuwa cusub ee qoraya ha noqotee bal ninba taagti nina kabarti waxa weeyaan maynu iman halkan mandar iyo dee inaynu xafladda xagga hore soo fadhiisanno oo ay dabeetanaa dee sacabka laydin garaaco waxa weeyaan idinkaa weydigan إن الدي وعركان دولة كونتي الدهشة بعضما كوسر يا ولي الدي الحمد لله رب العالمين يا وليته صومال يا وليته إنك هنا هبارنا يا والله قبصنا ومسكين لا وسومان هذا وقبصنا أيامه ولا فارق هو أقتلوه أنا محمد أقول دلكين وين الماشي دلكين نبضنا إنه هاي السنة أيين وين في قادم dimuqraadiyadan haysano ayaa qofkii shaqeey waaya tood gacan tood baa lagu fidiyay wuxuu balaqaada ardayda horta waxaan leeyahay balqaadiyo laakiin yaa la barino competition iyo sharciga shaqaalanimada iyo ka kontraabku siduu yidhi ha la sameeyo yaanay noqon marka la qalinjabinayo fundraising oo kale yaanay noqon oo balaqaad la'aan halkan kaga tegina laakiin yeeshadeeda mar haddii la sheegay anu waxaan leeyahay shaqadaanu haynaa waa macallimiine labaatanka kulliyad walba intii ugu sarraysay macallimiin baanu ka dhiganaa waa diyaare kaalaya macallinimadaana
macallimadaana waa inaad u diyaargarowdo haddii gabiile lagu qoro iyo haddii calaxay dhungeeyo haddii geedbalaa dhungeeyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo la hadlay ardayda qalin jabinaysa ayaa hambalyo u diray iyagoo sidoo kalena dardaaray ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Timcadde inuu ka soo qayb galnay qalin jabintii jaamacadda Timcadde University baashkii sideedaad ama horumadii sideedaad ee ka qalin jabisa aad iyo aad bay farxad dhammaanteed noogu tahay maanta ilaahay baana mahadle inoo nabada halkaas iskuulkeen keenay oo dalkii dadkeenuba degan yihiin intaa markaan ka gudbo waxaan runtii maanta aynu joognaa maalin walba mulayale waa maalintii ardayda maanta qalin jabinaysa farxaddooda oo dhammaanteen aynu iska dabamarayno aynu hambalyeeyno marka hore waxaan leenahay dhalinyartii qabligeena male maanta halkii qalin jabinaysa dhammaantiin hambalyo alfa mabruuk baan leenahay alfa mabruuk waxaa kaloo bogaadeenaa ama u ducaynaynaa macallimiinta jaamacadda iyo maamulka maaragtay iyo profeseerka gudoomiyaha jaamacadda oo iyaguna runtii kuwa mudanaya inuu hambalyeeyno noo ducayno oo aynu arkayno midhaha inay soo saareen kuna soo dadaaleen muddadaas iyagana waxaan leenahay jasaakumullah khayr aad baan igala hambalyeynaynaa waxaa kaloo hambalyeynaynaa waalidiinta soo garab qabtay ama ku soo dadaalay carruurtaasi barbaarinayay maalintii marxamadda ay galeen ilaa maanta runtii iyagana waxaan leeyahay ilaahay xasanaadka ilaahay nagu daro kuwii noqdana dadaalkii ay soo galeen inay carruurtooda ka helaan iyo qarankoodaba iyagana aad iyo aad baan u ducaynaya waalidiinta intaa markaan dib wuxuu sidaa la wada sheegay anuu hadal badan u bixi maayo odareedu weli baa la yidhi halka lasoo dhameeyo uu duceeyaa waxba looma reebo marka hadalkii waa soo dhammayseen wasiirka waxbarashada iyo guddoomiye faysalna intii ugu dheer qaatay iyo guddoomiyaha degmada maayarka gabiley xikmad iyo qoraaha iyo dowladda waa la yidhi waxaana ku adkaynayaa ardayda tiin aqoon-yahan saaxaddiis ku soo kordhay Somaliland oo waxbarashada qaybtii koowaad dhammaystay taasina sida la sheegay waxaa laidinka baahan yahay inay noqoto inaad aqoontaa iyo saaxaddaad kusoo biirteen inaad noqotaan kuwa ugu soo biiray sidii khayrkuu ku jiro iyo sidii qarankan wax uga bedel lahaydeen si aad lafihiina aad uga doonaan lahaydeen kuwa waxu baran si aad waalidkiinii u anfici lahaydeen Nuux Ibraahim Ariel TV gobolka Gabiley